magaaladan yar dadka ku nool waxa ay soomaan 3 saacadood iyo bar oo kaliya. haddaba halkee ayay ku taallaa magaaladan? maxayse tahay sababta ka dambaysa in waqtigaasi aadka u yar laga soomo? muslimiinta ku nool guud ahaan dalalka caalamka ayaa ku kala gedisan saacadaha la soomo bisha barakaysan ee Ramadaanka, oo waxaa dalalka qaar laga soomo ku dhawaad 20 saacadood, halka inta badan dalalka Geeska Afrika oo ay Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia laga soomo 12 ilaa 13 saacadood oo kaliya. haddaba weekend waa magaalo yar oo buuraley ah oo ku taala saldaanada Cumaan. qoraxduna waxay u soo baxdaa 12 subaxnimo ama 5 saac, waxayna u dhacdaa 2 iyo barka duhurnimo ama 8 saac ee duhurnimo sidaad u fahantaba. magaaladan yar waxay ku taallaa meel 150 kiiloomitir dhanka galbeed ka xigta caasimadda saldaanada Cumaan ee Muscat, waxayna ku taallaa meel sare oo qiyaastii 2000 oo mitir ka sarreysa heerka badda. magaaladan waxaa ku hareeraysan beero qurxoon, waxayna caan ku tahay soo saarka qudaarta, waxaana u soo damaashaa taga dalxiisayaal u riyaaqa quruxda dabiiciga ah iyo weliba buuraha cagaaran ee Cumaan. sheekada xiisaha leh ee magaaladan yar u gaarka ah ayaa ah in iftiinka qoraxda ay hesho 3 saac iyo bar oo kaliya maalinkii, taasoo ka dhigan in dadka ku nool magaaladani ay soomaan 3 saac iyo bar oo kaliya, waana waqti aad u yar marka loo fiiriyo xilliyada laga soomo magaalooyinka kale ee dalalka caalamka. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. fadlan share, comment, like saaxiib.